halkan fadhiya waa tiro badan yihiin dhammaan gudoomiyaha tala soo jeedin Saciid Wasiir Saciid dhammaan inta aan magacooda ka tagay inta aanan sheegin waxaan idinku wada salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo sanad guurada afraad ee xisbiga tiir waa wada arkaynaa firfircoonida iyo farxadda iyo shaqaalaha iyo dadka committee-ga halkan intaan arkayna gabdho iyo wiilalba sida ay maaragtay u hadlayeen waxay muujinaysaa roolka ay qaadan doonaan mustaqbalka insha Allah markay guuleystaan waxaan aad ugu faraxsanahay inaanu ku wada jirno maxay ahayd dalada Higsi isbahaysiga yaga oo uu ka yahay gudoomiye ku-xigeen Injineer Saalax waxaan aad ugu faraxsanahay in insha Allah waqti dhow ay doorasho dhici doonto in xisbiyada isbahaystay iyo xisbiyada kale dhammaan cidii ku guuleysata mas'uuliyadaas in dadku hadda fahmeen roolka xisbiyadu ka ciyaari karaan mustaqbalka 50 sanadood axsaab lama arag hadday dadku soo fahmayaan hadday dhalinyarada roolkoodii qaadanaysaa hadday mustaqbalkii loo wada jeedaa in wax laga bedelo oo laga baxo qabiil iyo hadda waxaynu maqlaynaa qabiil waaba iyo hoog iyo bulshay nabad waa intaynu u baahannahay waxaynu u baahannahay inaan ka gudubno 4.5 waxaan ka u baahannahay inaan ka gudubno reerays eegaya caalamka hore u socday Afrika hore u socotay dalkeena inay dawlado kale isku kordilaan khayraadka ku jira macdanta ku jira iyo istaraatiijiyadiisa annaguna aan inagu isku jeedno waxay la tahay inay foolxumo iyo inagu tahay dhibaato mustaqbalka caruurteena jaamacada waxaan xalay maqlaayay jaamacadaha labadii sanadood ee tagay 40,000 ba ka qalin jabiyay 40,000 oo maanta xamar jooga oo shaqo la'aan ah 2 sano kale 40,000 oo kale hadii Ilaahay yiraahdo haddaynaan joojin iska horimaadka iyo qabiilka iyo maxay hayto oo aan siyaasadda lagu tartamin axsaab ee reer laynoo kala xidhxidho meel gaari mayno dhulkeenana dad kalunba ama waa la qaybin ama waa la qaadan waxaan ku talinayaa dadku inay ka dagaalamaan qabiil inay ka dagaalamaan 4.5 hadda waxaan diyaarinaynaa petition doorashada soo socda inaan qabiil wax lagu qaybinin oo 100,000 oo qof ay saxeexdo waxaan rajaynaynaa inaad ka qayb qaadataan Iran online bay ku jirtaa insha Allah shacabkana magaalada dhexdiisa iyo magaalooyinka kaleba waa la geyn doonaa hambalyo Injineer Saalax dhammaan xisbiga tiir waa idinku faraxsanahay waxaan rajaynaynaa inaan guul wada gaadhno